waan idin salaamay saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan sharxi doonaa filin aad iyo aad u xiiso badan kaasoo lagu magacaabo When I Get Home My Wife Always Pretends to Be Dead. haddaba waa kan filinkiiye daawo oo taxadar. Jan Kagami waa shaqaale xafiis oo ku nool magaalada Tokyo isaga iyo xaaskiisa Ji Kagami. Jan hore ayuu markaa u soo guursaday xaas hore waxayna isqabeen markaa 3 sano kadib way kala tageen. waxayna isguursadeen markaa Ji labadoodu waxay ku heshiiyeen inay dib u cusboonaysiiyaan guurkooda calaashaan inay mar walba sanad guura dhigtaan haddii markaa ay dareemaan inaysan wada joogi karinna ay si fudud markaa ku kala tagaan. hadda waxaa soo dhawaatay sanad guuradii 3aad. Jan wuxuu ka walaacsan yahay sida markaa uu noqon doono mustaqbalkan soo socda isagoo arrimaha ka fikiraya ayuu markaa shaqadii ka soo noqday wuxuuna soo istaagay guriga hortiisa oo cabaar albaabka garaacay. albaabkii markuu xoogaa garaacay waa laga furwaayay wuu yaabay sababtoo Ji had iyo jeer waxay markaa kusoo dhaweyn jirtay albaabka hortiisa. cabaar kadib Jan wuxuu markaa isticmaalay furo gaar oo markaas uu watay si markaa uu gudaha u galo. markuu gudihii galay wuxuu la kulmay markaa arrin argagax leh. Ji oo markaa dhulka jiifta afkeedana uu ka qubanaya markaa dhiig uu ku dul dhacay isagoo markaa yaaban wuxuuna isku dayay markaas inuu toosiyo. nasiib darro xilligaa markaa uu argagaxa xun uu ku jiro wuxuu soo xasuusanayaa dhammaan waqtiyadii wacnaa uu la soo qaatay markaa xaaskiisa. maalintii arooskooda waxay ka codsatay inay dhimato isaga ka hor si aanay u noolaan la'aantii. dhowr sekin kadib Jan ayaa markaa soo booday wuxuuna isku dayay markaas inuu waco ambalaas si lama filaana Ji ayaa markaa qabsatay lugihiisa iyadoo u sheegaysa markaa inay baraanka ku samaynaysay. wuxuuna eegayaa iyada isagoo markaa yaaban dhan kale iyaduna way ku qoslaysaa maadaama isaga ay ka gashatay. si fudud waxay markaa uga codsanaysaa inuu yimaado kursiga cashada. habeenkaas waa la wada faraxsanaa isaguna wuxuu la kaftamayay markaa xaaskiisa waxayna seexdeen markaas iyagoo isku faraxsan. subaxdii xigtay Ji markaa waxay weydiisatay inay sii dhunkato inta uusan shaqada aadin. markuu soo baxay wuxuu soo tuuray markaa bacda qashinka kadib haweenay markaa nadiifinaysay meesha ayaa bacdii meesha uu ku tuuray fiirisay waxayna ku aragtay markaa dhar dhiig leh waana dharkii markaa isticmaalaysay Ji markii ay baraankiga isaga ku samaynaysay shalay. waxayna haweenaydii bilowday inay ka fikirto waxa uu samaynayo. markuu xafiiskiisa yimid wuxuu u sheegayaa saaxiibkii oo lagu magacaabo Sano baraankigii ay ku samaysay Ji. Sanana wuxuu ku ammaanay Ji dadaalka markaa ay gelisay inay ka naxiso isaga. Janna wuxuu u malaynayaa in xaaskiisu ay tijaabinayso inuu jecel yahay. marka la gaaro fiidkii Ji waxay karinaysaa markaa casho waxaana qoraal u soo diraya Jan isagoo u sheegaya markaas inuu guriga u soo socdo. waxayna si cad ugu farxaysaa markaa qoraalkiisa iyadoo markaa u diyaarinaysa inay baraanki kale markaa ku samayso. daqiiqada kadib Jan ayaa soo galay oo arkay markaa xaaskiisa oo dhulka jiifta madaxeeduna uu ku jiro afka yaxaaska waxayna iska dhigaysaa inuu yaxaasku cunay. Jan ayaa markaa soo orday wuxuuna sameeyey markaas inuu ka soo jiido afka yaxaaska isagoo markaa badbaadinaya iyada. si weyn ayay markaa ugu mahadcelisay maadaama uu badbaadiyey ninkeedu waxayna isu raaceen markaas inay casho cunaan. taas kadib waxay markaa mar walba sii waday inay baraanka ku samayso iyadoo markaa mar walba iska dhigaysa inay dhimatay. marba marka kasii dambaysana waxay la imaanaysay fikrad cusub. midda ay aad ugaga yaabisay Jan waa markay iska dhigtay in fallaadha markaa madaxeeda lagu toogtay wuxuuna bogaadiyey hal abuurnimadeeda iyo marba maskaxda ay ula imaanayso inkastoo uusan fahmaynin sababta markaa ay sida tan u samaynayso iyadoo og markaas in sanad guuradii 3aad ay soo dhawaatay. maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu samaynayaa inuu daadiyo mar kale qashinkaasoo u badan agabyo ay Ji isticmaasho si ay isaga dhigto markaa inay dhimatay. gabadhii qaabilsanayd nadiifinta ayaa mar kale baadhaysa bacdii waxayna ka helaysaa mindi dhiig leh. kadib waxay samaynaysaa markaa inay qayliso qof kastoo markaa meeshaa joogayna ay isugu yeedho ilaa uu Jan markii dambe u sharaxay in waxan aysan dhiig ahayn uu yahay markaa ketchup. mar kale xaaladiisa ayuu markaa saaxiibkii u sheegayaa. saaxiibkiina wuxuu kula talinayaa inuu markaa xaaskiisa u diro guriga waalidkeed oo ay halkaa markaa ku soo qaadato dhowr maalmood. markay wada hadlayaan Jan wuxuu bilaabayaa markaa inuu ka sheekeeyo sidii markaa ay isku barteen. wuxuu dhahay waxaan isku baranay anigoo jooga markaa Shizuoka oo aan u joogay markaa arrimo ganacsi waxaa iga tegaya markaa baskii aan raaci lahaa. kadib Ji ayaa markaa aragtay isagoo daba ordaya markaa baska wayna u yeedhay waxayna ku casuuntay markaa maqaaxida aabaheed. kadib sidaas ayay markaa isku barteen. Sano aad ayuu markaa ula yaabay sheekada jacaylkooda. maalintaas Jan wuxuu markaa ku soo laabtay guriga wuxuuna arkay Ji oo isku beddeshay markaa askari da'a kaasoo markaa ku dhintay dagaal waxayna isticmaashay dhowr fallaadhood sababtoo markii hore ay fallaadho keliya isticmaalaysay. aad ayuu markaa ugu ammaanay fikirka ay la timid. iminkana waxay isticmaashay dhowr fallaadhood wuu ku soo orday isagoo iska dhigaya markaas inuu ka murugsan yahay geerideeda. wuxuuna ogaaday inay baraanka ku samaynayso markuu arkay qiimaha labiska ay xiran tahay calaashaan maryahan ay xiran tahay hadda ay soo iibisay waxaana ku dheggan markaa qiimihii ay soo siisatay. si kastaba ha ahaatee maaha mid markaas joojinaysa marar badan ayay markaa ku samaysay saasoo kale maray iska dhigto fimbayr iyo sidoo kale maray iska dhigto in la afduubtay. Janna markuu shaqada joogo ma awoodo markaas inuu diiradda saaro shaqadiisa dhan kale wuxuu ku dhow yahay inuu ka boqo inuu guriga ku laabto. Sano wuu naxay markaa saaxiibkii wuxuuna ku casuumay isagii xaaskiisa casho dhammaantood waxay ku kulmeen markaa maqaaxi. xaaska Sano
oo lagu magacaabo Yamiko ayaa iyaduna meesha joogtay. Markay wada hadlayaan, Ji ayaa la weydiiyey sababta ay u go'aansatay inay guursato Jan. Casuumaadaas kadib maalin kale, Jan wuxuu geynayaa cafeteria taasoo had iyo jeer ay jeclayd inay booqato. Markay dhex socdaan magaalada, waxay arkayaan qof markaa keeg iibinaya oo sii socda. Kadib Jan ayaa markaa dabagelaya oo markaa kasoo iibinaya. Marka ay guriga ku laabanayaan, Jan wuxuu mar kale jeclaaday xaaskiisa. Habeenkaasna si farxad leh ayay markaa ku seexdeen. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo ku soo socda guriga, wuxuu arkayaa xayeysiinta boos ka bannaan markaa meel dharka lagu dhaqo. Waxaana ku soo dhacday fikrad, haddii Ji ay bilowdo shaqadan, waxay heli doontaa waqti yar. saas darteed wuxuu kaga badbaadayaa markaa baraankiyadii ay ku samayn jirtay. waraaqdii ayuu markaa guriga u soo qaaday. Markuu guriga soo galo, wuxuu arkayaa iyadoo u labisan sidii amiirad masari ah. Kadib baraankigan waxay samaynayaan inay isu raacaan xagga jikada. Jan ayaa markaa u sheegay wax ku saabsan markaa booskan bannaan oo ku booriyey markaa inay codsato. Jiina markii hore way shakiday, laakiin way ogolaatay inay samayso. Laga bilaabo maalintii xigtay way shaqaysaa, waxayna ka shaqaysaa markaa dukaanka dharka lagu dhaqo. dukaankaas oo iska leeyahay oday markaa da'weyn. Si kastaba ha ahaatee, meeshan dharka lagu dhaqayo kama joojinayso markaa baraankiyadeedii ay samayn jirtay. waxayna mar kale iska dhigaysaa inay tuuga dishay. wuxuuna u sheegay inay iska dayso inay ku ciyaarto dhimashada. maalintii xigtay, Ji waxay la socotaa taariikhda Sano xaaskiisa, waxayna ogaatay inay 6 sano isku dayeysay inay uur yeelato, balse kumaysan guulaysan. Ji ayaa markaa Yamiko u sheegaysa inay fiicnaan doonto. Jan ayaa xaaskiisa u keenay ubax iyo keeg ay jeceshahay, balse markuu aqalka soo galay, wuxuu markaa arkay iyadoo iska dhigaysa ruux markaa tabcaana, maadaama uu ka codsaday inaysan ku ciyaarin dhimashada. mar kale ay wejiga waxay ku xidhatay maaskaro, iyadoo markaa iska dhigaysa robot. way ka nixisay, wuxuuna ka codsaday markaa inay iska bixiso maaskarada. intaas kadib wuxuu arkayaa markaa warqad ay xaaskiisa hore u soo dirtay, iyadoo ka codsanaysa markaa inuu la kulmo, laakiin kama uusan ogolaan. lamaanahan ayaa markooda haddana casuumay Sano iyo xaaskiisa. Yamiko ayaa waxay aragtay markaas yaxaas qolka dhex yaala, wayna xiisaynaysaa yaxaaskan. cabaar kadib, ninkeeda ayaa wuxuu sheegay inuu u baahan yihiin fasax dheeri ah calashaan inay labadoodu baxaan. arrintaas ayay ka xumaatay Yamiko. si ay u degto, Ji ayaa waxay dhahdeen waxaan ku siinayaa yaxaaskan haddii aad ku guulaysato ciyaartan legdinta gacanta ah. Yamiko ayaa ku guulaysatay sababtoo ah yaraanteedii ayay ciyaari jirtay. iyadoo faraxsan ayay soo qaadatay yaxaaskii. Sono wuxuu dareemayaa markaa xumaan sababtoo ah muusan ogaan danaha xaaskiisa. maalmo kadib, Yamiko waxay Ji u sheegtay in iyada iyo Sano ay go'aansadeen markaa inay kala tagaan. dhan kale, Jan iyo Sano waxay aadeen markaa maqaaxi si markaa uga wada hadlaan arrintan. Sono ayaa markaa ku andacoonaya inuu furiinku yahay markaa go'aan wanaagsan. Jan ayaa sidoo kale isna daaha ka qaaday in xaaskiisii hore ay isagana ka dalbatay furiin. dhammaadka habeenkii aad buu u sirqaansan yahay, sidaa darteed Ji ayaa markaa soo qaaday. maalintii xigtay waxay helayaan markaa war ku saabsan in Ji aabaheed markaa uu xanuunsan yahay oo u yaala markaa cusbitaalka sababo markaa la xiriira wadna xanuun. degdeg ayay markaa ugu yaaceen, waxayna la kulmeen aabaheedu la badbaadiyey, balse Ji way ilmaysay, waxayna samaysay inay ka baxda markaa qolka. aabaheed ayaa Jan u sheegay inaysan ooyin tan iyo dhimashadii hooyadeed. markaa kadib, Jan ayaa wuxuu garwaaqsaday inuu sidoo kale la kuleeyahay xiriirkooda tan iyo markay bilowday inay ku ciyaarto inay meyd iska dhigto. cabaar kadib waxay aadayaan markaa beer, taasoo ay ku qaadanayaan markaa waqti. ugu dambayn guriga ay ku soo laabteen. maalintii xigtay, Ji ayaa markaa ka soo laabatay shaqada. guriga markay timid, waxay aragtay markaa Jan oo dhulka jiifa, afkiisana markaa uu dhiig ka dareerayo. way naxday oo ku soo booday isaga, iyadoo isku dayday markaas inay soo toosiso, laakiin si dhaqso ah waxaa u soo booday Jan, isagoo markaa u sheegay inuu baraanka ku samaynayay. filimkiina wuxuu ku dhammaanayaa isagoo u soo jeediyey inay cashayso. dhan kale, Ji iyaduna ay aad uga xanaaqsan tahay isaga. filimkiina saas ayuu markaa ku dhammaaday. haddii markaad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah, fadlan janaalka subscribe saaro, sidoo kale muuqaalkan laygare si markaa dad badan uu gaaro. waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga markaa ku kulmayno, waxaad kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.